aniga hadda haysto taabaan ii muhiima gabadhaasi waxay ka raadinaysaa nin u fiirso wiilay baranaysaa afar cishuu ma aragta u heesayaayuu dee maad aragtay alaabtii dee ilaahay ku manaystay waa ku jeclahay ishaag khatar baa kaa dhigi lahaa malaayigan kaa suuri lahaa maxay baa ku geyn lahaa dabaq baa cirkaa fooqaya kaaga dhisi lahaa gabadhii waxay raadinaysaa reerkay hooyada iyo aabaha waxay ku kala baxeen amba siduu reerkoogu u baaba'ay inuu adiga kaagaaga u baabi ayay samaynaysaa way u dhegal nuunaanaysaa ninkii iskalaaf bay u noqonaysaa wax kastoo u iraahdo ishii bay leedahay xitaa hadday gursato inta ula sheekaystana siduu doonu ka yeeli karaya sababtoo ah marka u horeysu qalbigayga xidhay gabdhahaasi waxay noqdaan tree fraajiil bay noqdaan fraajiil qof yaroo hadal macaan ka yiri hadal yaroo macaan naxariis bay agtooda u tahay qofka markaaba dhag sida maad aragtay birta yareed ku dhigtay galaaseerada iyo waxaasoo kale ayuu markaaba qofku saa usoo jiidanaya ula kacaya qalbigiisa laba yaroo kelmadoodoo naxariis la tustay dadkaasi ma jecla buuqa ma jecla dagaalka ma jecla inaan la dhibaateeyo ma jecla inaan la dhaawaco ma jecla inaan maad aragtay qalbi xanuun loo keeno waxay jecel yihiin marka wax la doonayo inaan loo sheego inaan hoos loogu sheego inaan la yaro sasabo inaan la yar kookoliyo inaan laabta la geliyo waxabay jecel yihiin ma weynaadaan amba nin haw amba naag haw ma weynaanayo qofkaasi waa dareemaysaa inuu wax ka maqan yahay jirkiisa uu tabanayo waa dareemaysaa markaa hadda ka hor waad iska daweyn kartaa laakiin waa anaa ku siinaysa iskaga daweynaysid haddaad ila mid tahay hadda ka hor aniga udabii ishti qabsaa saaban ahaa qofka hadal yaroo naxariisay siiyo waan biyoobi jiray nin hadduu carabkii afkii macaaneeyo waxaan ka fikiri jiray adigu saad ku dhacday inuu ubadkaa ku dhicin macnihii dulli kaste amba maad aragtay dagaal kaste amba wax kaste oo kula soo gudboonaada ahafto inaad qof adag noqotid inuu noloshani kaa baabiyey waxaan ahaa haddeenaha strong one iska dhig baske hadhow toole ilmahan baad dareemi doona waxaad adigu dareentay hooyada markasta waxay ka fikirtaa ilmaha markii hooyo gabadha noqoto markasta waxay dareentaa waxa iyadu shalay haysan inay maanta ilmahayga siiso hadhow heli karto markaa hadda ka hor aanu saaban ahaan jiray adigaaga ay daawanaya haddaad laba yaroo kelmadood macaaniga tiraadid waa biyoobay kool baa kugu noqonayo kool ilaahay unbaa iga kaa reebaya iyo maalintan xumaan kugu arko iyunbaa kaa hadhaya intaa ka horeysa maba kaa hadhi karinba markaa maxaan isku daweeyey because aniga waxbaa iga maqan waxa iga maqan sentiment de parent waalidnimo iyo iga maqnayd waad dareemi kartaa hooye iyo aabo markay kala tegaan ilmo kastaba waxbaa yaalla affecti buu baahan yahay waad dareemi karti mar maleynaya ilmo wuxuu baahan yahay gacanta aabaha gacanta hooyada hooye iyo aabo isla jooga waxaasoo dhan uu jecel yahay ilmo hadduu waayo mid ahaan waa inuu xooggiisa dul saaruu noqdo qof awood badan oo ilmaha garab siiya kow waxaa uga digayaa hooyooyinka single motherka soo maray ubadkoogu dareemayaan aniga shalay waxaa dareemayay waxaa uga digayaa inaanad ilmahaaga haddii aad hooyo keli ku noqotid
inaanad ilmahaaga dareensiin si kastoo ninka kuugu xumaa iyo si kasto iyo dhibaato kastoo ninka ku kala tagteen inaanad ilmaha uga sheekeyn because damage buu ku reebaya damagekaasi beritoole maskaxdiisa complet ma wuxuu ka dhaadhicinayaa wuxuu inantaasi amba inankaasi wuxuu noqonayaa dulli ma awoodi karo inuu qof dacasad ka dhiganaya uu maad aragtay ka tallaabsado amba ka foojignaado way ku adag tahay waay mar kasta wuxuu ku jiraa nowdu ku jiraa siduu uga cabsoonayo nowda ha gelin isaga nowda isgelinaya because ilaahay karaamad buu ku siiyey karti buu ku siiyey laakiin kartidaada iyo karaamadaada iyo qiimahaaga iyo erdigaagii maxaa la dhaadhacay mataqaantaa mentalityga lagu soo siiyey amba qaabka lagu soo koriyey yaa damage badan kugu reebaya si kastoo jacayl lagu siiyo si kastoo quwaa lagaaga dhigo oma madaxaaga waxa ku haray waxa marka waxa uga digayaa jeenka hadda soo kacay iyo aabayaasha aabiyo hooyaba labadaba lacalla calafku waa halkiisa dadku way kala tegaan ilaahay wuxuu u baneeyay inaan la kala joogo furitaanka guurkan ilaahay wuxuu u baneeyay inaan ubad la wada dhalo guri la wada joogo oo dad isku duuban oo isku baahan baan nahay haddii la isfahmayna wadada la kala maro laakiinse lacalla ubad meesha hadduu imaado waxaa aniga digayaa inaana haddaad aabuhu yahay uu aabuhu haystana ilmaha damage ku reebin hadday hooyadu haysatana inayna ilmaha damage ku reebin sababtoo ah ilmuhu wuxuu u baahan yahay waqtigaa inaa wax kaste oo wanaaga u maqlo xitaa hadduuna haysan labadiio isku duuban waa inuu helo wax kastoo wanaaga waa inuu helo kow hooyada weliba hooyooyinkan canaanaya sababtoo hooyadu waxay xasuusanaysaa ilmihiiba daba rafaadaysaa ilmihiiba daba silcaysaa ilmihiibaa dhiba alqaali ku noqonaya ilmihiiba wax ku noqonaya naga soo furaysaa baaya salkaa wasa garacii ku dhaloo kalaa tahay bay ka horanaysay waa dareemi karaa moogtaa waayo ninkiibaa soo xanuunjiyey ninkiibaa soo dhibaateeyey jacaylka waalidkayga ka weyday asaga ka raadisay ayuu asaguna ugu daray muu dareemin qofkan inuu uga baahan yahay inuu matali karo qofkani booskii abeed iyo booskii hooyday muu dareemin iyadoo saa u gubanaysa oo dareenkay ka doonaysa isaga aa ka weyday amba isagu dareenku gabadha ka rabay ka waaye ayuu ilmihii meesha imanaya ilmihiiba meesha ku silcaya ilmihiiba damage ku beermaya marka waxaan kaaga digayaa wiil iyo gabadh midkaa tahayba haddii lacalla aad ku soo kortay nolol noocaaya sidii doona faamilku aa kuu soo koriyaan haddii xitaa lacalla hal maalinoo aabbaha la caayay aad ku soo kortay haddii aad ku soo kortay hal maalin oo hooyadaa la caayay haddaad ku soo kortay waxaan kaaga digayaa inaad ilmaha dhashay aanad ku ababin sidii oo kale hadduu xun yahay aduu ku xumaa hadday xumayd aday kuu xumayd laakiin ilmaha waxaad ka dhaadhicisaa hooyadaa hooyo fiican bahayd waa waalidkaagii xaq bay kugu leedahay imikaahan way daalan tahay garab ma haysato maanta anaa ka garab badan ilmuhu hadba kuula joogo waa inuu ilmaha waalidkiisa kale ka maqan ka dhaadhiciyo inuu ilmaha waalidkaasi dhibaato haysto xilligaa laakiin uu awoodi karin inuu ilmahan ula joogo siyaabo badan oo ubadka wax looga dhaadhicin karaa jirta because ubadku waa cajilan ilmu markuu weynaado ha ku fahmo diswito maalintu 18 jir gaadho ilmuhu wax kasta uu fahmaya 16 jir 15 jir baa wax ku fahmi jirna anagu laakiin please waani baraya weligaa ma kacaysid ilmahaasi wuxuu noqonayaa ilmo wax ka qaldan yihiin alxamdulilah aniga waxaan isku daweeyanay sheega aniga alxamdulilah ma haysan family jiita family dagaal badan family buuq badan family maad aragtay maxaa la radaaye aflagaada leh laakiin cunsurnimo ha yes ani taabay damage igu reebtay damagekayga igu weyn oon ku barbaaray oon xasuusan karo waa cunsurnimadaayoo ah because aabbahay soomaali maahayn taabaa aad damage igu beertay
kastana maskaxdayda way ku weyneyd because habara